السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان ومدى الصوماليات ملك استوى جوجان. وحن لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفك هلا يا ونستاحو عبدي نستاحو سمفله channel كيج نستاحو فمفله marka hore waxaan in leeyahay walaalayaal waan salaam meel kasta joogtaan waxaan kala rabaa in ay idin mahad celiyo dadkii subscribe ka ii saaray like ii saaray share ka saaray soo wacay ii mahad celiyay ii duceeyay runtii aad baa loogu boogay barnaamijyada aan soo dhiga baraha bulshada ama walaalaha la qaybsado aad baa loogu bogay waa runtii feedback baa liiga soo celiyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta fahantay oo share ka oo subscribe ka saartay meel fiican baa arrimihii marayaan waxaan kugu bishaaraynayaa inaan wada guuleysan doono waana idin maaragtay hambalyeynhayaa waa isku hambalyeynayna ma sha Allah barnaamijkan hadduu guuleysto wada guuleysanaynaa waxaan u malaynayaa horta inta hadda barnaamijyada fiirsatay iyo inta subscribe ka saartay waxa yar inta runtii daawataa badan subscribe ku xamal inaan la fahmin dad badan baa isoo waco waxay subscribe ka maxaa waaye runtii markaad booqato channelka la yiraahdo nasteexo baad qoraysaa nasteexo ma waa nasteexo markaad qorto samafale ayaad ku xijinaysaa markii aad channelka soo gasho horta videoga inaad daawataan waaye marka hore markaad daawataan haddana waxaa saaraysaan calaamadda gaduudan oo meesha midigta ku taala oo farta gaduudan ku taala subscribe ka la saaraya haddana gambaleelka la saaraya haddana share baa la saaraya wax weyn ma ahan waa wax yar inta dad laga codsado ayay ugu yar tahay waxa laga yaabaa inaad ajar ka heshaan oo ajar aad ka heshaan runtii arrinta ayada inaad ajar ka heshaan barnaamijkaas hadduu horumaro ballan way ajar baad ka helaysaan waanaad arki doontaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin intaas waa intii aan dadka ugu mahad celinahay walaalaha intii kale to cusubna hadda ayaguna kulay waa soo dhawaada waxa way booqda channelka intaas markaan ka baxo barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay runtii wuxuu ku saabsan yahay barnaamijyadan waa tii horumari ay ahayd horumar naftaada horumari runtii maanta in yar baan waxaan dhex gashanaynaa horumari naftaada waxaan dhex gelinaynaa horumari walaalka horumari walaalka runtii horta qofka walaalka ah ama bini aadanka ah wuxuu leeyahay darajo ilaahay uu siiyay buu leeyahay qiimo ilaahay siiyay buu leeyahay qof walba marka ilaahay abuuran hayay some reason ayay u noolaaday oo ilaahay u abuuray waxa la rabaa marka qofka walaalka in aad maarka sida uu yahay aad horta ku qadariso marka hore accept waxa la yiraahdo qofkan wuxuu yahayba asaga ah qofku adiga maahan adiguna qofka ma tihid intaas markii la helo oo walaalo is respect gareeyay oo is aqbalay oo qofka kale xornimadiisa iyo qiimihiisa uu maaragtay runtii uu ku qadariyo uu siiyo dabcan dadku isku mid maahan qofba dabeecad buu leeyahay qofba wax buu ka helaa dad baa haday doonaan si u labistaan dadkan sibay u labistaan dad baa cuntada nooc ka hela adna nooc baa ka heshaa dad baa guryahooda si u ogyihiin adna si ku ogyihiin dad baa dabcan waxaa jira qofka ilaahay ku abuurtay iyo wax qofku asagu uu doortay oo uu rabo inuu noqdo marka isku soo wada duub waxa waaye qofku adiga maahan adiguna qofka ma tihid sidaa markay dhacdo walaaluhu inay wax isku sheegaan ama aad walaalka wax ku sheego ama aad wax u sheegto waa la isku baahan yahay waa dabcan waa muhiim hadii la helo balse waxyaabaha la rabo inaad qofka ku qadariso waxa kamid ah waxa asagu uu yahay inaad horta respect ku samayso accept ku samayso ka bacdi wixii aad u sheegayso si wanaagsan ugu sheegto asna uu ku sheego mid kale ta aan aad iyo aad aan rabo inaan u sheego waxa waaye inaad walaalka dhageysato وعاونات وحيابك كميدا أما قفك ولالك وحيابها أكو سيادين كرتو وحا كميدا أنا قفك ولالك دقيستو قف بهرمان إنه وحكوش شاقو أما وحليا بل إنه كويدير ربا وحكولي ياي
qofka waxaas seeba u dhacay maxayse ahaayeen waa inaad qofka maaragtay aad horta dhegaysato markaad dhegaysato walaalka ilaa iyo xad aad dhegaysato walow dee dhegaysiga laftigiis uu xad leeyahay ilaa iyo xad isku day walaalka inaad dhegaysato midda labaad waxay tahay walaalka inaad arrimaha uu kuu sheegto inaad u xafido walaalka u xafido waxaa kaloo ka mida wixii qofku uu yahay ilaa adigu asaga ma tahide asaguna adiga maahee wixii uu kuu sheegto wixii uu yahay inaadan faragelin badan ku samayn oo aadan babaarkaad badan ku samayn because waxaan arkayaa dad badan oo isku mashquulsan oo maaragtay hadda waxaa moodaa maasha allah in la isku mashquulay maanta oo dhan qof lagu dhagan yahay qof dhulka lala dhacaayo qof lagu dhagan yahay dabcan marmar way jirtaa kaftanka iyo wuu iska bannaan yahay maaragtay xoogaa qofka in la yara maaragtay walaalkaa hadday wax ka qaldan yihiin si nasteexala loogu sheego oo ilaa iyo arrimo diini haddaad taqaano xagga diinta aad qofkii wax ugu nasteexayso dabcan culummada ayaa wixii diina qofka u nasteexaynaya waxaan kaloo rabaa inaan maasha allah aan wax yar ka iraahdo ayaantan gabar lagu mashquulay oo dhalinyaro ah runtii oo geed la saaray oo maaragtay god loo qoday oo maaragtay lala kala yaacay oo gabadhaas waxa weeye anaga waxaan nahay asxaab baan nahay ciish wadaag baan nahay runtii waan aqaanaa qof wanaagsan weeyaan waa qof dadkeeda jecel waa gabar fanaanada runtii xaggayga aniga cise iyo barakay ka leedahay cise way ka mudan tahay waxa ay tahaana ku respect gareeyay walaashay waana salaamaya hadda ay maqasho marka runtii dadka inaan lagu mashquulin walaalka haddaad caawinayso inaadan ku mashquulin inaadan ceebihiisa sheegin inaadan maaragtay risaaqad ka raadin walaalka caydiisa iyo ceebayntiisa iyo warkiisa intaas horta waa muhiim walaalka markii intaas aad u samayso wuxuu dareemayaa qofkaas inuu yahay qof wax kala ah oo wanaagsan wuxuu dareemayaa inaad walaalkiis tahay wuxuu dareemayaa inaad maaragtay kuu soo dhowaanayaa xataa qofku haddii uu wax qalad u aragto adigu aad qalad u aragto waxaa laga adigu inaad qalad u aragto qofku wuxuu samaynayo laakiin in isku wax inaynan u aqoon qalad wax asaga qalad la ah ayaa adiga sax kula noqon kara wax adiga sax kula ah ayaa qofka qalad la noqon kara macnuhu maahan wax adigu aad u aragta qalad in aanu qalad u arko macnuhu sidaa maahan ummaddu waa kala gooni dadku waa kala duwan yahay waa kala dabeecad waa kala caqli waa kala aragti so ha ku qasbin walaalkaa sida adigu aad u aragta wax inuu asaguna u arko waayo adduunka aad arkayso waa kala duwan yihiin dadku waa kala duwan yahay ka soo qaad 5 farood ma sinna midba waa nooc mid waa suul waa gaaman yahay mid waa si kale some reason waxa waa ilaahay dee wuxuu u samaystay asaga ogta anigu waxaan qabaa marka in la kala duwanaan karo oo qofka uu ka duwanaan karo waliba waxaan is leeyahay cilmi baa ku jira caqli baa ku jira adiga laftaaga marka waa inaad fahantaa in dadku isku si u hadlo muhiim ma ahan dadku inuu isku si u socdo muhiim ma ahan dadku inuu isku dhar qaato muhiim ma ahan dadku inuu isku wax arko muhiim ma ahan adduunkan waxa weeye haddaan la kala aragti duwanaan oo aan waa la kala duwanaan hore uma soconayo wax horumar ma yeelanayno waxa marka maadaama barnaamijyaasha ay ku saabsan yihiin horumarka bulshada ama hor u socodka bulshada waxaan runtii aan hadda diiradda si fiican u saarahayaa ha isku dayaynina dadku inuu isku si u hadlo isku si u socdo isku si u labisto waayo dadku cilmi baa ku jira caqli baa ku jira horumar baa ku jira inuu kala duwan yahay adduunka marka maxaa lagu hormaraa runtii oo adduunka aan uga dambayna anagu saan isleeyahay qofka waxa weeye horta markiiba ha ku soo boodin ha dhihin ooy gaal baa tahay xaaraan baa ku hadlaysaa xagga wax xun bay samaynaysaa horta markaad wax aragto wixii waxaa loo baahan yahay inaad caqligaaga iyo fikradaada adoo la kaashanaya walaalka kale hadda wadamadan hore u maray waxaan ka baranay barnaamij baa laga rabaa in laga hadlo ama waxbaa wadamadu ay ku horumarsadaan baa laga hadlaya waxaa la samaynayaa waxaas markii laga hadlo waa la aruurinayaa waa la isku imaanayaa markii la isku yimaado
guddi baa loo saarhayaa waa loo codaynhayaa guddi kalaa loo saarhayaa wixii markii la ogaado meesha loo batay oo codku u bato ayaa wixii lasoo qaataa wixii horaa loo wadaa marka horey baa loo wadaa isla markiina waxbaa laga soo saaraa go'aamaa laga soo saaraa waa lagu dhaqaaqaa sidaas adduunka hore ugu socdaa laakiin maanta oo dhan haddaan rabnay Soomaali haddaan nahay inaan isku si u soconno isku si u hadalno isku si wax u aragno nooma suurtoobayso so barnaamijkaygu maanta waxaa weeye accept walaalka caawi walaalka maxay ahaytoy horumari walaalka ha ku mashquulin soo dhawee xataa haddaad aragto waxyaabo xun qofka inuu ku kacayo isku day inaad u nasteexayso walaalka oo la saaxiibto marka hore oo aad la sheekaysato oo bari baa waxa igu yiraahdeen qolo oo Swedish oo aan runtii asxaab noqonay ayaa waxa igu yiraahdeen meel baan waxaan ku wada sameynay sanad cusub iyo waxaan sameynaynay faystan sameynaynay xoogaa ayaa maaragtay waxa iga raacay marka biyo yar oo dadka moogta sharaab baa la soo qaaday waxbaa la soo qaadaya sharaab yar oo haaf ayaa soo raaca boorsadaydi maalintii dambe taan u geeyay haafkii biyaha waxay yiraahdeen nasteexo ma sidaas dhaqankiinu ma saasa ha dhaqankeenu saas way diinteena noo sheegtay dadka inaan la xaman dadka inaan la xadin dadka inaan waxooda la qaadan oo wallaahi Soomaali sidaas ma ana moodayn baa la yiri maanta Soomaali waxaan ku faraxsanahay nasteex inaan ku baranay maantay haddaan adiga ku baranay Soomaali oo dhan waa baranay marka waxaa la rabaa dadkii dhaqan wanaagsan inaad kula dhaqantid xataa dadka ajnabiga oo gaalada dad baa waxay ku leeyihiin gaala raac baa tahay gaalada la socotaa gaalada wax la cuntaa gaalada warta gaalka waxaan ula socdaa waxaaba dhici karta qofka gaalka markuu dhaqankayga arko wanaagsan diintaydii wanaag uga sheekeeyo uu aniga ibartasan u dhaqma inuu yiraahdo oo wallaahi Soomaalidu waa dad fiican yaa dad fiican baa tihiin ma garatay marka barnaamijkaygu maanta sidaas aan uga baxayaa caawi walaalka ku caawi inaadan xagxagan inaadan wax ka sheegin inaadan oran nacam sida anigu u soco asagu waxa way sida uu u socdo iyo sida uu yahay adiga ma noqon karo qofku lagama yaabno adiga noqdo mid kalena waa jirtaa waxa jirta sheeko kale oo ah waxay yiraahdaan haddii aad qof tiraahdo qofkaasi waa xun yahay waxay yiraahdaan meeqa farood baa kugu soo jeeda adiga afar baa kugu soo jeeda markaas aad tiraahday ma saddex baa kugu soo jeeda qofkiina laba ku jeeda waa suulka iyo fartaas marka macnaha waxay ka wadaan asloonga qof aad wax ka sheegayso adiga laftigaaga waxba si ka ah waayo mid ugu horeysana waxa weeye wax aad markaas walaalka ka sheegaysaaba qalad ah so adaaba qaldan bay ka wadaan hadaaba qof wax ka sheegayso adaa qaldan ma garatay mideeda waxa weeye adigu naftaada bedel you never change someone inaad la hadasho baad leedahay you never change marka adu taada baad bedeli karaa marka macnuhu waxa weeye intaad qof islaameed ku mashquulin oo wax ka sheegin horta bal adigu isu soo xisaabi isu soo qiyaas aniga horta maxaan aniga shakhsi ahaantayda nasteexa ahaan who I am qofkee ahay maxaan marka aan walaalkay ku siyaadin karaa maxaan waxa la yiraahdaa waxa jirto kale waxa yiraahdaan kelmad adigu ajnabiya marka Soomaaliya u fiirsho waxay noqonaysaa sida adigu aad rabto in lagu aqbalo ama lagu soo dhaweeyo ama accept lagu sameeyo adigu samee hadhihin on maxay ahayd qofkaas saas waay adig marta wax laga sheego waa maya adig marta in lagu xanto waa maya adig marta in lagu xasto waa maya waxaan ogaataa waa sidaan u sheegay qofku waxa way hadda artaan qof ku dhagan somehow some way qofkaas asaa qaldan ma garatay marka qof walba waxaad adigu isu soo xisaabay intaad xisaabinayso qof kale to walaalkaaya walaalka accept u samee way waxaan maanta ka barnaamijka ku saabsan yahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin waana taxane barnaamijyadu waana sidaas nabadgelyo